awoodda kartida in dadku wada xidhiidhaan ayaa ah mid rabbaaniya iyagoo isweydaarsanaya akhbaar markastana raacaya sida ugu dhibta yar ee isku fahmi karaan tan iyo abuurka bini'aadanka bulshooyinka kala fog ayaa adeegsado hadba qalab amaba qoraal waraaqa ah ee ay fariintiisa ku gaadhsiin karo cid kastoo uu rabay aaladaha loo adeegsaday in akhbaar layskugu gudbiyo kuwooga ugu awooda badan qarniyadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah internetka haddaba internetku iskuma jiro waa uu kala duwan yahay kala xawaaro duwan yahay kalana casrisan yahay habka ugu casrisan ee maanta caalamka laga isticmaalo oo ah fiber optiga ayaa la isku raacay inuu yahay ka ugu xawaaraha badan uguna qaadka weyn daatada sidoo kalena ugu ammaansan oo akhbaartaad dirto aanay cid kale kaa jabsan karin amaba la bixi karin xogtaadaas xadhigani sida internetka xawaaraha badan ee fiberku waa xadhig dheer oo yaala badaha dunida oo dhan kaasi oo leh adkaysi biyaha dhexdiisa ah isagoo sidoo kalena dhulka hoostiisa loo qodo oo uu maro waxaa loo adeegsadaa inuu qaado telefoonada tiifiyada janalada waxaanu sida qasabadaha biyaha amaba xadhigga leydharhka loo geliyaa guryaha ama meheradaha doonaya inay isticmaalaan xadhiggani awoodda badan ee fiber optiga balaynu eegno taariikh kooban oo ku saabsan fiberka 1880kii ayaa saynisyahan lagu magacaabo Graham Bell iyo khubaro kale oo ugu horeysay ay sameeyeen fiberka kii ugu horeeyay ee telefoonka kaasi oo lagu sameeyay magaalada Washington DC ee cariga Mareykanka waxa uu markaa ahaa ikhtiraacii ugu weynaa ee la sameeyo waxaanu awood u lahaa inuu qaado codka telefoonka iyadoo markaana la sameeyay telefoonkii ugu horeeyay ee wireless ah kaasi oo lagu tijaabiyey laba dhisme oo isku jiray 213 mitir xawaaraha fiberka ayaa ah mid ku socda speedka lightka muddadaasi wixii ka dambeysayna uu sii casriyoobayay oo wuxuu gaadhayay in loo isticmaalo maalinba maalinta ka dambaysa noocyada kala duwan ee isgaarsiinta optical fiber waa xadhigga ay isticmaalaan shirkadaha isgaarsiinta ee dunida oo dhan kaasi oo ku gudbiya signalka telefoonka ama internetka amaba telefishinadu si xawaarihiisu dheeraynayo waxaanu shirkadaha u hirgeliyaa xawaare dheeraynaya fiberku waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u badan maadaama uu ka samaysan yahay copper wires mana laha wax waxyeelo ah sida leydhka amaba dabka kugu dhegaya ma laha bulshada caalamka oo dhan muddooyinkii ugu dambeeyey iyo qarniganaynu ku jirnaba waxay si ballaaran u isticmaalayeen fiber optica iyagoo adeegyadooda kala duwan ku gaadhsiinayay bulshadana ganacsiyadooda yaryar iyo kuwa waaweynba way ku isticmaalaan Somaliland ayaa hadda ah dalka hadda horumariyay tayada internetkooda iyadoo shirkadda Somcable ay keentay xadhiggani awoodda badan ee fiberka taasina ay u suurtagelisay bulshada iyo ganacsatada Somaliland inay helaan internet xawaare badan iyadoo Somaliland ay kaga duwan tahay wadamada kale ee Afrika ee xadhiggan u yaalo inaan bulshada loo xadidin ee ay siday doonaan u isticmaalaan xadhigga fiberka iyo internetkoogaba waa markii ugu horeysay ee Somaliland lagu isticmaalo fiber optic waxaana shirkadda So Ltd ay shacabka u diyaarisay labada nooc ee fiberka ee kala ah fiber to the home iyo fiber to the business fiberka guryaha lagu isticmaalo iyo ka ganacsatadu ay isticmaasho labada systemba shirkadda So ayaa haysa faa'iidada weyn uu leeyahay shacabku waxa ka mid ah in signalkiisu aanu marna iska dhimin xawaare kasta oo ay u baahan yihiin ay ka helayaan share sar like nasar page ka So Ltd waa diyaarintii Maxamed Fuusi Maxamed